Senatarka Gaarisa Cabdulqaadir Maxamed Xaaji Yuusuf iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa socdaal mahadcelin ah ku maray degmooyinka hoos yimaada deegaanka Ijaara waxaana ka mid ahaa xildhibaan Sofia Cabdi Nuur oo ah xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Ijaara ku-xigeenka barasaabka ismaamulka Gaarisa Cabdi Dhaqane Maxamed mudanaha aqalka hoose ismaamulka Gaarisa u midala deegaanka Huluuqo mudane Cadow gudoomiyaha xoolo dhaqatada dalka Dubbad Cali Camay odayaal cuqaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan socdaalkan oo dhanka dhulka ayaa qaatay muddo 4 cisho ah waxaana ulajeedkiisu ahaa in senatarka Gaarisa uu u mahadceliyo garab istaaga ay siiyeen shacabkiisa reer Ijaara waa kuwan qaar ka mid ah siyaasiyiinta socotay oo goobta ka hadleen maanta maalinta waxa iska leh Cabdiqaadir Maxamed Xaaji Yuusuf baa iska leh anaka kale waan soo raacnay garab baan u nahay habeen iyo maalin baan garab u nahay marka Cabdiqaadir wuxuu u imaaday inuu tolkiisa barto inuu tolkiisa ku mahadceliyo inuu tolkiisa garabkay u noqdeen ay la istaageen ay habeenka fariisanin inuu u imaado waa mahadsantihiin dhoob ugu imaaday anakana taas aan soo raacnay oon dhahnay arrin wanaagsan waaye waan soo raacnay marka khayr Allah ku siiyo Cabdiqaadir waan ku duceynaynaa waqti kastaba maanta waxaan u imaanay xafladii Cabdul Xaaji xaflad anag leenoo ma aha Cabdul baan keenay ina uu isbaratiin ma aragtay oona idin mahadcelintaas anag naftayn waa idin mahadcelinaynaa inaan idin mahadcelino samawada dhamaan meesha joogtiin saad u taageerteen markuu duqa naga baxe wiilkiisa markaan soo qaadanay dhanka kale cuqaasha iyo waxgaradka ka mid ah ufuuda ayaa iyaguna goobta ka hadlay midnimadaanada iyo qarannimadaanada aan muujino Cabdul Ilaahay khayr hasiyo waa nin tababaran duqa tababaray waa nin cilmi qabo waa nin wax walba maxamed Yuusuf Ilaahay u naxariisto wax badan buu qabtay Cabdulna intii ka badan buu qabani uu ka shaarsan yahay uu ka xoog badan yahay ugu dambeyntii senator Cabdulqaadir Maxamed Xaaji Yuusuf ayaa isaguna la hadlay shacabkiisa hadaladiisana waxaa ka mid ahaa nakumbuka vizuri sana na leo tukija mumenikumbusha sana juu ya mzee marehemu yangu kuja leo hapa kwanza ilikuwa kuwashukuru nyinyi watu wa Sangailu vile mulisimama na sisi wakati ya taasia na mkasimama na sisi pia wakati tulisema tunataka kuwania kiti ya senator. Tunasema asanteni sana. Jambo lingine ambaye imetuleta hapa, tulikuwa tunakuja na viongozi wote wa Kisamawadha kuwaonesha nyinyi kama watu wetu kuwa sisi kama viongozi tuko pamoja. Abdul Majid Umar, On Cable TV, Garissa.